waxaa la yidhi dadka muslimiinta ah hadday waddamada carabta keliya soo galaan sidaa ku joogaan weli mushkilada ma haysato tacliinna waa ka helaan diintoodana waa xifdisan tahay weli marka waddamada carabteeda waxaa lagu qancisiiyey qof laaji ahoo soomaaliya inaanay aqbalin wax lujuu la yidhaha inaanay aqbalinin qaxoonti wax la yidhaha inaanay aqbalinin irdaha laga xiro dadkana ay tarxiilaan dhammaantood oo ay ama soomaaliya u tarxiilaan meel kale u tarxiilaan cawaa'il fara badan sacuudiga ka rar khaliijka ka rar dad badan tarxiil bah la yidhahda soomaalida looga waaliyey waad wada ogsoontiin dhammaantiin siddeetanadii waxaa loo furay marka yacni waxaan idiin sheegaya waddanka canada iyo markii la furaya yurub markay ku heshiiday in la furo qaxoontiga 76 bay ahayd markii la furay qaxoontiga Geneva Convention markii la sameeyey 76 ahayd 76 dadkii soo qaxan waxaa ugu badnaa soomaalida ugu qax badnay jazakallahu khayran waxaana la ka xiray marka waddamadii muslimiinta khaliijka kaliya haddii soomaalida loo furi lahaa oo la dhihi lahaa xataa qaxoonti la idin siimaaya ka shaqaysta way ku filan raallina waan ku ahayn laakiin dhammaantood waana la ka tarxiilay waayo hadafku ma ahayn stageka labaad inaan waddan muslim joogno ma ahayn hadafkanagu waa sidii yuhuudda lagu sameeyey oo kaleeto berigii horayto in la kala faniiniyo oo dadkan soomaalida weli la aaminsan yahay inay yuhuud ka yimaadeen qaarkood yuhuuddu ay leeyihiin weli oo ku leeyihin nin yuhuud ay igula murmay aniga oo kule wallahi soomaalida saamiriyiin wey saamiriyiin baa tihiin islaamka carabta idin tagtay carabta idin xoogtay laakiin saamiriyiin baad ahaydeen afrikaanka kale waa ka duwan tihiin annagaa naqan meesha ka timaadeen ay dad badan ku qancisiiyeen xataa kalaam jamiil markiina la ka xiray waddamadii carabta marka oo la yidhi ha aqbalinina xarbana laga shido meeshii ishcaal xarba laga sameeyey soomaaliya oo isla gubatay dhammaanteeda oo idin waayo la taliyaal buu leeyahay isaga naftigiisii bahalka xuma kale ogaa waanu qaxna marka talyaani oo xubeero ahoon kumi haysan iyo Spain ilaa iyo Australia iyo North America waxaa la yidhi aqbala dadka waddamadii carabtana waa la ka xiray hadafkaasi muxuu yahay marka way isweydiiya hadafkaasi waxa weeye soomaalidu waxay lahaayeen 6 shay ama 4 shay oo ra'iisiya oo ay dadka kale uga duwan yihiin bay lahaayeen afarta ra'iisiga waxa weeye dadka Soomaalidu waxay lahaayeen luqad kaliya hal luqad ay ahaayeen laakiin muxuu sameeyay luqooyin kala gedisan inuu sameeyo talyaaniga isku dayay ingiriiska iyo kala day waxa yiri qabaa'ilka maanta marka sheekhul qabiilaha loo sameeyo maanta xagga laga tuuro qof walba ninkii ugu horeeyay qabiil sameeyo wuxuu ahaa ingiriis iyo talyaani oo mushaar ku siiya markaas waxay yiraahdeen حتى أنت كريم إيه أذنك أسكول لقاء كلمة الله إذن كوجرتوا إن القبيل كاتين اللي إذن كوجرتوا سمايستا متر هذا الداء بدله مد هذا وينية مد يرية مد لا كلي ماذا مد البحر اللي قد رجوا حلي أدو إن القبيل كاسته عده وترتجي أدجنته أدوجو شيخ هاجنا شيخ القبيلة هاجنا كقبيل كانوا وين عدي يدوي محير اللقاء كلا بحسن ما هو الصومالي كل جيده يدك أما الرحوين هكو هذلو أما وقوي هكو هذلو أما هكي ماذا أنا فدي أما هكي ماذا ما شدون هكي ماذا واسكول لقاء كل جيده يدك لكن وحو يري دايلت كلا سمايستو واحد يشان إسكالا توصية إن تكين كلا قبيلة إن تكينوا مالها أدينكو قبيلة بدكنتها واحد لقوا قرت وين سمايستان حولها وين كلا سنتتان جيلي سمدي كتال وين دوقاتان هل قبيلهم يلدقنا جيلي سميدو البسمات قارا لقوا دجي وكو dadka Soomaaliyeed waxay lahaayeen caadaad iyo taqaaliid isku mid ah ay lahaayeen dhamaantood oo haday ciyaarayaan ciyaarahooda waa isla wada yaqaaniin haday maanta ma arkaysaa alla baryayaan waa isku wada mid haday aroosayaan waa isku wada mid haday tartamayaan waa isku wada mid haday kaftamayaan waa isku wada mid wax alla waxay sameynayaan waa isku wada mid waa caadaad iyo taqaaliid inta dadku ay ku midoobaan oo dad iyo dad ka dhaxeeya ay ku midoobaan waa ku midoobeen hadi musiiba kubra hadana waxa kale tay ku mid noqdeen diintii islaamka ku mid noqdeen wuxuu yiri nin gaali say ku dhici kartaa buu yiri dad dawlad dhalo meel degan kaligeed isku hal diin haysataa say ku dhici kartaa waa muslim kulligeed 100% nin yahuud ay ugu murmay jaamacada isla joogno impossible buu kulay an unacceptable mana aqbali karno mana dhageysan karno say ku dhici kartaa yiri a pure nation 100% muslim sayno aqbali karaa buu anugu taa la'natullahi alayk waxa weeyaan marka qadiyada isku hal diin ay ahaayeen Soomaalida markaasi hadana kulligood sunni ahaayeen markaasi kulligood shaafici ahaayeen hadana gaani wuxuu yiri maxay isku haystaan soo kulligood shaafici ma tiidin oo kulligiin oo ardayga tago yiri feerinta soo qabqabtay hargeysa oo soo kulligood shaafici ma tiidin maxay isku haystaan kulligood yaani waxa laga dhaadhacay diinta islaamka waa shaafici laga dhaadhacay hatta waxay tahay kala ma yaqaan
وادب تمرك مذهب كليته دين كليته عادات كليته تقاليد كليته لغة كليته وادب تأرنتا أيضا وحال يروى إن بابي إن أمد الصوماليات مراد كاللقالها سوكعين تددك الصوماليات لقدو دو مد أهيت دين تو دو مد أهيت عادات كو دو مد أهيت ما أنت ماركيس أيغو أها بيور نيشن أو إسدالدالي أيغو أفرتا إن لبابي أيو أها هدف ككواد والأخير وأين سامتان تا بمعنى آخر وحن وذا أكسونا هاي مانت أذين كان يدين ويدين يا أذيك المهاجو مانت اسكول لقد ما تهدين اسمه فهم إذا أذيك المهاجو المهاجا يا المها ولا الكائن هولن شوغان اسمه فهميان المهاجا يا المها ولا الكائن كندا شوغان اسمه فهميان أذيك يا المها كلاتو فيلن شوغو قرابة اسمه فهميسان وحابا بعضي مرك أو أي ترتيرن سوق من لقد يدتك كده حيسان مدينة دمان تدوي بابا دي أوجاد هرتور هنقولنا أغبياء هنقولنا لقد يدتك الصوماليات كده حيسي أو لقد دوا واحد كاهي أو طلياني أيوجو تشترين دي تشترين أن تشنا مركي لحرهري إسكسوري دبتشستين يرهدين أن كعرنو لقد كلتو أي أن قال كيف من يكون ذيين لقد الصوماليات يدتك سكوف من وبابا دي أوجاد هطبعا والله قلت لك علي أيوة قحونتي سين إنه طلياني أو باهي ودماني يسبين لو قفري سعودي عربي يا خليج كان لو قحري إني دتك صومالي ده آذان هدف كوجو الريو كود وحوي هرت اللقاد ده هلا بابا شو هلا كلا تورو استراليا إلى كندا أنتوا راح هلا تورو لقادي كل كي بابا عادي أو ما أنت لقو كلا تورو استراليا إلا النورد أمريكا لقو كلا توري تاسوا مدوي مركز دتك مدوي كل مجرتي صوماليات واللقادة سواي بابا دي أوجاد ما أنت توك أوجاد لما أنت أوجاد أنت نويسهم يسانو ودتك صوماليا كسوي مد باتين ذيك صوماليا لكن الماء ما أنت هدي لا يسوق كانوا أنت أنا كل الماء إسكندنافيا لا إسكاجا كانوا ما أنت اسمه فهم يعني أوجاد تا هذا أنت الماء هذا شان ما أنت يسوق كانوا شرق قبتان لغات كلها هذا شان قرن ما يسانو أوجاد تا تسوى مت تنلبات تيا هي دينتي وحالك كلا توري waxay la mid yihiin dadka Soomaaliyeed maanta ito ari waraaba ari raadinay ama yey ari raadinaysay oo meel ka doonta la'ayd oo cidla ka heshay markii dambe sidoo u baayra qabal iga warram hadaba ari cidla ayuu raadinayay cidlu ka helay cidla joogtay inaynu jirin buu ogaaday kolkaas oo baayra intaanu weerarin kor wuu farxay nimanka kanaa'iska iyo gaaladu Soomaaliya tageen hadda koor waxa ka horeysay qadiyadii gadashada ilmaha ee Belgiika ka horeysay in Soomaaliya intii la joogo la fuliyaa la isku dayay qadiyadan way hirgali weysay wadamada carabta ka qayliyay waxa loo xiray carabtana sidaas ay ahayn Dr. Cabdalla Umar Nasiif oo ahay gudoomiyaha jaamacadda Malik Abdul Aziz ayuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee ka qayliyay ee qadiyada ka shifay waa la ogsoon yahay markaynu ku qaylinay oo nu tagnay waxa weeyaan عربت سيداسا لوغا خيرو هدا كور با لا كشف قضيدي نينكي قسيسكا ها اي بلجيكيغا ها يا طليانيغا لبدبا سيداسا عربت لوغا خيري سيداسا لو بدل ميشنكي waxay noqotay markaa dadkii u aadi jiray Soomaaliya oo madaxda dawladda laaluushka siin jiray oo nin walba u dhigi jiray center baan furaya oo ayagu lacagtooda iyo kharashkooda ula aadi jiray oo gaal dadka kale laaluushi jiray ayagoon kumi ku bixinin waraabihii ay geliyeen dadkeed inay maanta dadkii oo ilmihii wada u keeneen oo ay malaysan kari waayeen xataa way malaysan kari waayeen kulkaasi waxay yiraahdeen say ku dhici kartaa bay yiraahdeen inaynu maanta ma arkaysaa dadkii Soomaaliyeed iyagoo ilmahoodii wada oo dhigahoodii ilmahoodii wata inay noogu soo galaan guriyahanaga say ku dhici kartaa bay yiraahdeen waxaynu ku riyoonaynay muddooyin dhan aan ku riyoonaynaa ilaahay maanta noo xaqiijiyay bay yiraahdeen kumay harin ayagoo dadkii u soo haajireen intii hartay bay duulaan u aadeeno بريجي مرايكنكو أو كدولي waxa ay sameeyeen intii kiilay cuntaheeda qaadeen intoo kale to kitaabaha ka daba qaadeen nin qolal ila maalti fay groupkooda aan la naqaashi jiray ayaanu iska soo raacnay aniga wadaad Suuriya baabuur soo wada raacnay leey maanta wadaad qaar u sheegay kolkaas wuxuu yiri waxaan ku weydiiyay aadan barsooniso maxaad waa la gartay dhaqaatiir inaad geysaan ya cunta inaad geysaan waa la gartay bible-kaad geynaysaan muxuu ahaa kolkaas wuxuu yiri waa markii ugu horeysay ee taariikhda ay soo marto yani golden opportunity ay soo martay buu yiri fursad dahabiya ay soo martay buu yiri
marka baybalku wuxuu na leeyahay Jesus na leeyahay buu yiri meeshii hal kiilo cunto aad geyso hal baybal gee hal kiilo cunto meeshaad geydo hal baybal si wuxuu yiri waxaan aad u jeedoon askar iyo ciidan meesha tagayana kulligood facilities waxay u yihiin ay facilitate garaynayaan buu yiri baybalkay wadeen word of God bay u dadaalayaan buu yiri luqadii marka diintii sidaas ahayd wadamada la keenay catholic iyo protestant iyo jinni iyo cifriid iyo Jehovah Witness iyo maanta markaysa qurun oo dhan iyo yahuud iyo aqsaamteedii mid walbaaba sinagoga iyo kaniisadda iyo kulligooday dadkii u gacanta u soo galeen ilmahoona waa loo geeyay dadkii waaweynana waa loo geeyay marka ma arki doontid diin isku mid ah haystaan dambeeto way ku dhamaatay ogow marka ayadana ma fahamtay taadana diin midaha dambeeto ay haystaan way ku dhamaatay ogow madhab shaafici haystaan iyo midna torortaasi ma jirto diin dambo midaha haystaan way ku dhamaatay 100% ay muslim yihiin hal diinaha ka jirta way ku dhamaatay ogow taa ayadana saddex si xamaaska loo dilo wadaninimada iyo caadaadka taqaaliidda loo dilo qadiyadii ahayd dadka soo galay wadamada ay soo galeen mid walba wuxuu qaadanayaa caadaadka iyo taqaaliidda iyo meesha waxa looga dhaqmayo iyo festivaleska ayuu ku dhaqmayaa birthday iyo kulli wixii dhan waa lagu dabaqayaa maalintii dhalashada iyo kulli ilmihii iyo faystadii wadankaas la qabsanaya aciyaadoodii iyo kulli waxay isu bedeshay taasi isu bedeshay iyadana ogow afar Soomaali waa hal jinsiya oo isdhalay waxa lagu bedelay hablihii aynu keeno yaryara halka aynu keenay yeenimadii aynu halkan keenay hablihiina waxay raaceen inama gaala wiilashiina waxay raaceen habla gaala ay raaceen waxa soo baxay barax aanan sal iyo raad meel ku leeyahay la garanaynin luqaw ku hadlayana aan la garanaynin oo makhluuq oo khariban ayaa soo baxay ogow marka wayaga isdhalo waa hal jinsi ah oo xamaasad dhulkii u haaya dambe ma arkay sidoo ilmaha maanta adigu aad haysaahi ee wadankan ku koraya adigu wadankii isku si uma haayoonaysana ogaada hadaba taa ilmuhu wadankan ay doonayaan mana bixin kartid awoodna uma lihid adigu wadankii baa doonaysaa waayo waad ku soo korto diintiisii iyo dhaqankiisii iyo ummadiisii ku muuqanaysa isaga waxa u muuqanaysa inuu member ka yahay community-gan aadiminka dhex keentay anti qadiyadeed ee aanu marka gaaladu ay ka doodayeen ee ummadda Soomaaliyeed waa isku luqo waana isku diin waana isku caadaad waana isku hal nation ay ka yimaadeen halkaas ay ku baabaaday ogow